muddooyinkii dambe uu sii xumaanaya xiriirka u dhexeeya xukuumadaha muqdisho iyo kenya isla markaana dowladda federaalka soomaaliya safiirkii u jooga kenya tarsan ay ugu yeertay inuu soo gaaro magaalada muqdisho halka Lucas Tumbo dalkiisa dib loogu celiyo si dowladiisu wadatashi ula soo simay iyadoo ay taasi jirto ayaa xalay waxaa soo ifbaxay go'aan ka dhana dowladda kenya oo ay soo saartay dowladda federaalka soomaaliya isla markaana xiriirkii ay ugu jirtay dowladda kenya taasoo ku eedeynaysa inay ku xadgudubtay madax bannaanida dalka soomaaliya oo aanan ahayn mid gorgortan galaysa dowladda federaalka soomaaliya ayaa 7 cisho u qabatay dadka uga sugan dowladda kenya dalka soomaaliya si ay uga baxaan halka diblomaasiyiinta soomaaliya uga sugan nairobi loogu yeeray in sida ugu dhaqsiyaha badan dalka ugu soo laabtaan haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya oo la dhex qaadnay mikrofoonka muuqaalbaaya STN ayaa ka aragti dhiibtay siday u arkaan go'aanka ka dhanka ah dowladda kenya oo ay soo saartay dowladda federaalka soomaaliya dowladda runtii waan ku taageersanahay go'aankii xalay ay qaadatay iyo go'aamadii marka horeba ay ka qaadatay qaadka in la joojiyo iyo maxaan ku leeyahay Kenya in loo jaro xiriirka diblomaasiyadda runtii waan ku faraxsanahay sababtoo ah dal dunida ka jiro aqbalaya ma jiro maxaan ku yiraahdaa in siyaasadiis la soo faragashado dal aqbalaya ma jirto marka waxa weeyaan runtii dowladda Soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay go'aanka ay ka qaadatay waanu ku garab taaganahay garab iyo gaashaan dowladda waanu la garab taaganahay insha Allah bidal kariim waxaanu leenahay ha cabsanin garabkaaga waxa taagan shacabka Soomaaliyeed ayaa taagan Kenya runtii aad baan maxaan ku raacaynaynaa dhibta ay nagu hayso waxaanu doonaynaa inay naga diiso insha Allah bidal kariim dowladana waxaanu leenahay dadaalkaaga halka ka sii wad aad baa mahadsan tahay magacaygu waa Cabdullaahi Cabdisaaq Yusuf kamid ah aqoon-yahanada dhalinyarada ee wax ka barata jaamacadaha dalka Soomaaliya runtii waa soo dhaweynaya go'aankii geesinimada lahaa ee dowladda federaalka Soomaaliya ee ku dhawaaqday xalay waxaan ku taageerayaa dowladdeena sharafta leh sida ay ugu dhabar adeegtay caqabadihii iyo caqabadihii ku imaanayay dalka dibaddiisa Kenya waxaan ognahay intii yarayd ee ka jirtay khilaafku uu jiray wax badan oo tanaada Soomaaliya inay ka tanaaday dhinaca kobaca dhaqaalaha waayo barisatay 80% Soomaaliya lacagteeda waxa qaadan jirtay Kenya kuna qaadan jirtay caleentaas oo wax faa'iido aan u lahayn dalka marka runtii aad baan u soo dhaweynayaa go'aankii ka soo yeeray dowladda federaalka Soomaaliya aad baan u faraxsanahay maanta inaad la kulantaan barnaamij noocan ah dowladdiisaan runtii daan u soo noqon barnaamijka inaad xiriirka dowladda Soomaaliya u goysay ee dowladda Kenya aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah Kenya waxa weeye cadowgeena koowaad maadaama ay muddo badan ay siyaasadda Soomaaliya faragelin ku haysay xalay sabti dhexe markii la soo saaray warqad xiriirka loogu jirayo runtii ma aan xalay xilligan maantay la soo saaro waxaad waqti hore bay ahayd sababtoo ah Kenya sabab badan iyadoo adeegsanaysa isha maxaa la yiraahdaa siyaasadda Soomaaliyeed ayay wax u soo badhay meel walba waxa horta sharaf dara ah waxa dadnimo dara ah waxa wax laga xumaada ah dowladda iyo dowlad kale haday isqabtaan in aan la saftid dowlad kaleeto oo dowlad kale garab ay siiso taas waa wax laga xumaado waa taas waa Soomaalinimada waxay ku jireen qalad walba hadii dowladdaada leedahay waa dowladdaada in la saftaa taas ama mucaaradka leeyahay dowladda Kenya waxaan leeyahay markii ugu horeyso horta waan ugu soo xadgudubyo badan aan ugu sameeysan dowladda federaalkana go'aamada ay ku dhaqaaqdo waa go'aamo saxan aan fikirkeyga hadaan ka hadlo waayo dhowr mar dacwad loo gudbiyo waxaan uga haysteen arrinta badda waxaan u arkaa inay awliya dowladduba tahay oo awal dagiis baan wada ahayn ay xiriirka u jirtay awal dalkasho waxaa sameeyay baarlamaan markii maamulka la dhisayay buu yiri maamulka sharci ma aha oo u coday go'aankan ay soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli 20 bisha December lagu wado in dalka Djibouti uu ka furmo shir ay isugu yimaadayaan dowladaha xubnaha ka urur goboleedka IGAD taasoo ay ku dhageysan doonaan dacwadda ay dowladda Soomaaliya ka gudbisay dhigeeda Kenya Samiir Cabdirasaaq Umar wararka warbaahinta magaalada caasimadda Muqdisho